waxaan ku xijinaynaa ciwaankeenii ahaa awoodda dhallinyaradu ay u leeyihiin maxay tahay waxyaabaha u suuro gelinaya awoodda dhallinyarada ee ka qayb qaadashada nabadda. waxyaabaha u suuro gelinaya waxaa ugu horeeya dhallinyaradu waa dad u furan inay isbeddel sameeyaan. waa dad open u furan, maskaxdoodu ay furan tahay, u diyaarsan inay isbeddel sameeyaan mar walba. dhallinyaradu waa dad future oriented ah, waa dad inta badan ay ka hor muuqdaan, ay u hilaacayaan mustaqbalka cusub. laakiin qofka da'da weyn waxaa laga yaabaa inuu aaminsan yahay waqtiga intii badnaa waxaan ku soo dhammaystay hadday isbeddelaan isbeddelka cusub inuu la qabso waayaaba laga yaabaa inuu u fakerayo qofka da'da weyne. laakiin qofkan da'da yari maanta ay mustaqbalkiisa iyo noloshiisa ka horeeyaan, wuxuu aaminsan yahay in mustaqbalkaas kii shalay awowgiisa iyo aabihiis ku noolaayeen mid ka duwan inuu keeni karo ayuu aaminsan yahay. sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo innovative way dhallinyaradu inta badan halabuurka qorinta la qabsiga waxyaabaha cusub ayaga ku wanaagsan mar walba. waxyaabaha kale inta badan fududeynaya waxaa ka mid ah waa dad dhiiran dhallinyaradu, waa dad inta badan qatarta inay ka fakeraan ay uga fududahay fursadda inuu raadiyo, inuu qatarta uga boqo fursadda jirta ayaa maaragtay mar walba yar. marka mar walba fursadda u muhilaacda dhallinyarada iyo hididiilada inta badan qatarta iyo inay maaragtay concentration-kooda inay siiyaan qatarta ma badna. sidoo kale waa dad wax la bari karo, waa dad dunida waxa ka jira nolosha guud ee dunida ka jirta inay la barbar dhigaan dalkooda inta badan u furan, bara kara waxyaabaha cusub, isbeddel qori kara markaas kadib markay bartaan waxa dunida ka jira iyo waxyaabaha cusub. marka waxyaabahaas waa waxyaabaha inta badan awoodsiinta dhallinyarada maaragtay awoodda ay dhallinyaradu u leeyihiin isbeddelka waxyaabaha loo soo tusaale qaato weeye. dhallinyarada iyo kaabayaashooda maxay u baahan yihiin si ay ula jaan qaadaan ka qayb qaadashada nabadda? maxay u baahan yihiin maxay u baahan yihiin marka aan leenahay muhiimadeedu ma ahan inay dhallinyaradu dad cusub sugayaan, ma aha inay dhallinyaradu dad cusub sugayaan in maaragtay waxaas ay fuliyaan, ma aha. laakiin ayagaa waxaa laga rabaa inay soo dhammaystiraan kaabayaashaas oo qofku marka uu rabo inuu shaqo adag bulsho bedelo inuu kaabayaashan soo dhammaystiraa la rabaa, dabadeedna uu ku dhaqaaqo hiigsigiisii. wuxuu u baahan yahay tusaale ahaan nabadoo kale markuu ka shaqaynayo inuu qaato tababaro ay qayb ka tahay xalinta khilaafaadka oo kale, wada hadashiinta bulshadoo kale iyo maaragtay dhexdhexaadinta bulshada in maaragtay tababar noocaas inuu qaatay loo baahanaya. waxyaabaha kale oo loo baahan yahay waxaa ka mid ah tusaale ahaan in waxbarasho aasaasiga qofku uu mar walba yeesho. barashadaas aasaasiga ah waxay ka saacidi doontaa in uu ka adkaado waxyaabaha dhaqamada ama traditionalka ee dadka aan wax baran laakiin bulshadiisa ku jiray colaadaha ku lug lahaa, waxyaabaha dhaqamada ah inta badan ay ku dhiirigelinayaan inuu qofkaasi waxaa mar walba badan uu cilmigiisu ka soo kormaro dhaqamada bulshadii asaga ka horreysay ee uu ka dhashay ay ku wacyigelinayaan ee inta badan colaadaha sii hurinaya. waxyaabaha kale inta badan dhallinyarada la rabo in maaragtay kaabaya waxaa ka mid ah in participation inuu sameeyo, inuu ka soo bilaabo neighborhoodka deriska, inuu ka soo bilaabo iskuulkii marka uu tago inuu ku xijiyo, in wacyigelintii uu maaragtay jaamacadihiisa ku xijiyo, workplace-ka iyo areada uu ka shaqaynayo inuu wacyigelinta nabadeed ka sameeyo. sidaas inuu ku barbaaro oo bulsho badani ay markaas la qaadato barnaamijka ayaa badan. laakiin inuu yiraahdo berri markii cid fangaraysa ama maalgelisa nabadda markaan u helo ayaan la sugaa, maya. waxaad ka soo bilowdaa meesha ugu hooseysa ee groundka ah oo aasaaska ka soo bilow, dabeedna bulshada guud ha kula qaadato. waxyaabaha kale muhiimka waxaa ka mid ah dhallinyaradu inay sameeyaan baaris tiro badan. haddii environmentiga aad ku kortay nolosha oo dhan aad ku miisaantid inta badan inay isbeddel curisaahay ma badna, ma dhacaysaba. marka waxaa laga rabaa tusaale ahaan muqdisho ama soomaaliya ayaad ku barbaartay ama soomaaliya qayb ka mid ah ayaad ku barbaartay. qaybtaas soomaaliya ka mid ah waxaa laga yaabaa in dadkii da'da yaraay intooda badan waxay xasuustaan waa un colaado, waxaas ay xasuustaan. marka haddii uu yiraahdo noloshu sida caadigaaba waa intii aad ku kortay, inuu isbeddel curiyahay ma badna. waxaa la rabaa inuu dunida inteeda kale baaris ku sameeyo, inuu ogaado in waxaan ka duwan inay jiraan, dabeedna inuu baaro maxaa dhaliyey in maaragtay taas sidaas noqoto, taaduna ay sidaan ahaato. waxaa u fududaanaysa markaas in wixii suuro geliyey dalkiisu inuu halkan joogo kuwaasina ay halkaas joogaan inuu helo faktarka suuro geliyey ama caqabadda ku ah, dabeedna isbeddel inuu qoriyo ayaa fudud. mar walba waxaan rabnaa dhallinyaradu in aan old barrierski ama waxyaabihii xuduudihii hore
maskaxiyan dadkii hore ku dhex jiray inay dhallinyaradu ka dugnaadaan aan rabnaa oo macnaheedu ay tahay haddii awowga uu ku fekeraya ama aabba uu ku fekerayay in asaga iyo bulsho hebla inaysan isdhex geli karin asaga iyo bulsho hebla inay weligoodba colaadi ka dhexaysay qasab maaha inuu saas u fekero laakiin waxaa lagaa rabaa inaad tiraahdo adigu maanta dunida ku soo biirtay berrina waad ka tegaysaa maxaa isbeddelo waad qoran kartaa goormee ku habboon inaad samaysay taasaa maaragtay mar walba la rabaa inuu qofku ku fekero sida waxaasoo dhanna waxaa looga gudbi karaa intaan yare aan sheegnay ee kaabayaasha inuu qofku tababar qaato inuu aqoon leeyahay inuu participationka xilli hore bilaabo oo ka qayb qaadashada xilli hore uu bilaabo iyo in mar walba uu baaritaan badan uu sameeyo uu yidhaahdo dunida inteeda kale maxaa ka jira meesha aan ku koray arkay laakiin maxaa ka jira dunida inteeda kale waa mahadsantihiin